Ladies and gentlemen, peace of Allah be upon you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi casharo fara badan aan soo qaadanay allah mahad iskale oo makaniyay inaan isu soo gudbinaa casharadii taxanaha waana Somali Star Online Training English and ICT idoo casharo fara badan oo advance aan soo qaadanay idoo step aan ula socon doono waa somalistaronline.blogspot.com casharadeeni halkan video exam iyo exercise waa ka raadin karnaa waana soo degsan karnaa haddii aan doono وانا انجينير محمد احمد دري عشرتي امتحانها وميغانكا hadda tallaabaan sii qaadi doonaa ardayda qaybaha IT-ga casharadii SPSS-ka ayaa weli aan ku guda jirnaa iyadoo casharo fara badan ay noo soo socdaan waana very important taasi hadda tallaabaan aan sii qaadno ardayda kala duwani meel walba oo adduunka aad ka joogtaan direct number waa marjacaan la soo xiriiri lahayn ama somalistar@yahoo.com casharo fara badan aan soo faa'iideysanay ardayda kala duwan ardayda ku sugnayd Arizona, Santiago, North Carolina iyo South Carolina iyo ardayda London, Birmingham City ku sugan iyo ardayda Norway, Finland, Denmark, Switzerland iyo Sweden ku kala sugan iyo ardayda Maine ku sugan ya Saudi Arabia, Dubai, Qatar iyo Kuwait iyo Turkiga si siman baa loo qaadan doonaa halka ardayda Maine ku sugan sida Soomaaliya, Muqdisho, Hargeysa, Kismaayo, Boosaaso, Gaalkacyo, Beledweyne, Baydhabo, Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe, Jubbada Dhexe, Bakool iyo Gedo si siman loo qaadan doono waa very important taas inaan la wada soconno waana casharadii taxanaha Somali Star Online Training aan kala soconay hadba tallaabaan usii qaadaynaa iyadoo casharadeeni step aan ula socon doono iyadoo casharadeeni hadba tallaabaan usii marayno lesson 42 baan usoo gudbaynaa maadaama aan soo qaadanay lesson 41 modern caveman godadleyda iyo casrigani joogto cave exploration sahanka godadka or ama patrolling godadleyda as it has come to be known waa sida loo yaqaanay is a relatively new sport waa hiwaayad cusub perhaps laga yaabay it is desire caashaqa for solitude qofka keligiya or ama chance of making ku samayn karto an unexpected discovery sahan aan la garanin ama sahan aan la hubin oo kale unexpected aan la filayn that lures men ayaa basharka ku horseeda luresna u horseeda way men basharka down inay ku daadagaan to a depth gun of the earth ee dhulka it is impossible suuragal maaha to give inaad ka bixiso satisfactory explanation faahfaahin lagu qanci karo inaad ka bixiso suuragal maaha for maxaa yeelay both holders godadleyda motives ahdaafta ay u sameynayaan ay godad ku galayaan oo kale waa motives waxa weeye hadafka shaqada u qabanayso for him asiga caves godadka have to send peculiar fascination waxay ku abuuraan xiise qaasa with high mountains sida buuraha dhaadheer have ay ugu leeyihiin for the climber kuwa fuulay sahanka ay ugu abuuraan xiise oo kale as their rose waxay ku kiciyaan instance caadifada which can only be dimmed oo si naaqus oo hooseysa understood loo fahmi karo exploring really deep caves sahaminta dhabta ee godadka dhaadheeri is not a task ma noqon doonto hawl uu qaban karo task tijaabooyin ama hawl uu qaban karo for the Sunday afternoon rambler iska farxad u socdaha maalinta axad oo kale maalinka axadda waa meesha anaga maalinta jimcaha ay nagu jirto kale farxad u socdaha maalinka axadda hawl uu qaban kara ma ahan baa la yiri such undertakings hawlaha noocan oo kale ah require waxaa looga baahan yahay the precise planning qorsheyn sugan and foresight of military operation foresight ama inaad sahmiso kale foresight waxa weeye inaad sahmiso of military operation howlgal military it can take wuxuu qaadan karaa as long as 8 days ilaa 8 maalmood to regap inaad u soo ururiso rope ladders xargahaaga iyo to establish inaad ku aasaasto supply bases macnaha supply bases inaad ku aasaasto saadkii supply bases inaad ku dhigato saadkaagii aagun dhigatoo kale before ka hor a distance intaan lagu daadegin can be made and la samayn into the very deep cave god aad u dheer
precautions taxadar hor leh of this sort oo noocana are necessary ayaa daruuri ah for maxaa yeelay it is impossible suuragal ma aha to foretell the exact nature to foretell inaad warbixin inaad ka warbixiso oo kale the exact nature abuurta dhabta of the difficulties ee mushkiladaha which will confront ka hor imaan kara the beholder godlaha ama godleyda the deepest known cave godka la yaqaani ee ugu dheer in the world dunida is Geoffrey Beger near u dhow wuxuu u dhow yahay marka Grenoble meesha la yiraahdo its extent wuxuu hoos u qodan yahay to a depth gun over ka badan 3723 feet ilaa 3723 feet. This immense chasm godkani aadka u weyn has been formed wuxuu ka aasaasmay by an underground stream biyo-mareen dhulka hoostiisa ah which has tunneled oo martay markaa ka gudubtay through the flue dilaac of the rocks ee dhagxaanta waaweyn. The interest halka laga galo to the cave godka is on a plateau waa highlandka waa meesha highlandka waxaa la yidhahdaa plateau. Iska hubi plateau haddaa maqasho waa dhulka sare heerka biyaha ka sarreysa in the Davion halkaasoo ah in the Davin meesha la yidhaahdo Alvis halkaasoo ah Davin Alvis ah. Okay, as it is only 6 feet across halkaasoo u jirta ilaa 6 mayl oo kale ilaa iyo 6 feet halkaasoo ka durugsan ilaa iyo 6 feet. It is barely noticeable waa wax la arki karo simply way barely simply it's barely noticeable it is simply noticeable noo ku bedelan kartaa barely meeshaas ah. Okay, it's barely noticeable waa wax la ogaan karo. The cave godka might never have been discovered haddaan la sahmiyeen had not the interest halka laga galo been spotted uusan soo arkayn by sense by usoo arkayn that distinguished French ninkii ahaa caanka Faransiiska ahaa but holders oo godleyga ahaa oo godlaha ahaa Beger la oran jiray since it is discovery ilaa iyo waagii la ogaaday it has become wuxuu noqday a sort nooc but holders nimanka godlayaasha ah Everest buurta ugu dheer ba waxaa la yidhaahdaa Everest godka adduunka ugu dheerna Beger baa lagu magac daray. Though inkastoo number tiro of descent kudaadagisa have been made lagu sameeyay godkaas much of it intiisa badanna is still weli remains wuxuu baaqi ku sii yahay to be explored in la sahmiyo weli sahan baa usii dhiman. A team kooxaya of beholders oo godlayaala recently waa dhawood went down ayaa galay ama ku daadagay the Geoffrey Beger godka la oran jiray Geoffrey Beger oo ahaa godkii ugu caansanaa dunida after entering markay galeen the narrow gap spacekii ciriiriga ahaa of the plateau ee halka ka sareysa biyaha oo highlandka ah. They climbed waxay ku daadageen the climbed down waxay ku daadageen the steep sides dhinacyadii shubnaa of the cave ee godka until ilaa iyo they come ay soo gaareen narrow corridor jidkii ciriiriga ahaa. They had to edge waxaa qasab ku ahayd to edge inay dacalka uga qabtaan their way wadada along this dhinaca sometimes waqti kooban wending across ayagoo si degdega uga gudbayo shallow steams waxa weeye biyo mareenkii gaagaabnaa or ama shallow steams or ama swimming kaga gudbayo across macnaha dabaal kaga gudbayo across ayagoo kaga tilaabaya deep pools barkadihii hooseeyey. Suddenly waa markiiba they come waxay soo gaareen a waterfall meel biyo dhaca with dropped oo ku shumayso into the underground dhulka hoostiisa underground like hara dhulkiisa hoostiisa ku taala at the bottom halka ugu hooseysa of the cave godka. Then
waxay gudagaleen ama waxay hoos u quuseen into the like haradii aniyo after loading their gear markay geerka geliyeen on an inflatable rubber ring saxiimad yar oo caag oo aan degayn inflatable haddii lagu yidhahdo aan degayn way led ayaa u saamaxday the current mawjadii ama hirkii cry inuu usii qaado dem ayaga to the other side dhinaca kale to protect say isku ilaaliyaan themselves nafahooda from the icy water ay uga ilaaliyaan biyihii qabowba they had to waxaa qasab ku ahayd to wear inay xirtaan special rubber suit suit laga tolay caag oo kale ama special ah rubberna waxa weeye caaga jilicsan okay the far end dhinaca ugu dambeeya of the lag ee harada they come waxay soo gaareen to huge piles rasooyin dhan of rubber oo dhagaxa which had been washed ay soo xaqeen by the water biyihii in this part qaybtan oo keliya of the cave ee godka they could hear waxaa la maqli kari an instance booming sound cod aad iyo aad kor u ah booming waa aad u sareeya instantly waa cod aan kala go' lahayn which they found waxay ogaadeen was caused inuu sababayo by small water spot biyo dhac yar shooting oo ku dhacaya down kasoo dhacaya oo kusoo dhacayo into the pool barkada ku dhacayo from the roof saqafka ka imaanayo of the cave godka squeezing waxa weeye ayagoo jafaya squeezing through ayagoo jafaya the cleft dilaaci in the rocks dhagxaanta the potholders nimankii godadleyda ah arrived waxay soo gaareen an enormous cavern god aad u weyn the size baaxad ahaan of a huge aad u ballaaran concert hall oo la-eg hoolka xafladaha lagu dhigto kale after switching on markay shideen powerful arc lights leerarkii iftiinka badnaa they saw waxay arkeen great stalagmites xaraaraad waaweyn some of them qayb ka midana of 40 feet high ilaa afartan la-eg 40 feet la-eg joog ahaan rising up oo kasoo dalaacmaya like tree trunk sida jirada geedoo kale tumid say u qaabilaan the stalactites xaraaraadka hoose stalagmites waa xaraaraadka sare stalactitesna waa xaraaraadka hoose xaraaraadna dhagxaantan sida cilmiyeysan god loo qoday way godkaani okay suspended oo kasoo laalaadaan from the roof saqafka roundabout markaad la wareegto piles rasooyin dhan of the limestone dhagax nuuriyadeeda glistened ayaa iftiimiyey in all of the colors asoo midabada dhan ku iftiiniyey oo ku tusayo midabada of the rainbow waxa weeye qaansida qaanso roobaad oo kale in the airy silence aamusnaantii naxdinta badneed in the airy silence haddii lagu yidhaahdo silence aamusnaantii naxdinta badneed of the cavern ee godka the only sound codka keliya that could be heard la maqli karay was made waxaa sameynayay by water biyo with drop it kasoo tif lahaa continuously si joogto ah from the high dam halka sare ee saqafka ah above them ee korkooda iyadoo casharo fara badan aan soo qaadanay waa Somali Star Online Training lesson 42 baa maantana qaadanay ardayda vocabulary ayaga undeynaya waana very important taas ardayda kala duwani meel walba adduunka aad ka joogtaan waa Somali Star Online Training Professional Tutorials idoo casharadeenii faraha badnaa aan ku guda jirno lesson 42 waa maanta aragnay ama caawa aan qaadanay idoo casharo kale nagu soo wajahan yihiin sida ugu dhaqsiyaha badan buuggan advanced lesson 43 baan usoo gudbaya waxaana loogu talagalay buuggan ardayda advanced level ka waana engineer Maxamed Axmed Diray casharadiisa taxanaha miyaanka ardayda qaybaha IT-gana toos casharadeen Skype-ka kala socon doontaan waana very important maanta waxaan sii qaadanay lesson 42 waxaan isugu imaanaynaa lesson 43 idoo casharo fara badan aan soo faa'iideysanay oo advanced waa somalistarionlineblogspot.com hadba tallaabaan u sii qaadaynaa sidaa darteed fi amaan allah wassalaamu calaykum waraxmatullahi